السلام عليكم كسر رواد داود ضيال maanta waxaan xaggan ku abaalmarin doonaa guuleystii koowaad ee barnaamijka su'aasha jimcaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu talagashay macaamiisheeda ku xiran barteeda Facebook iyo kuwa ku sii biiri doona. Waxa xaggan lagu soo raacay Cabdisaaq Ali Yuusuf oo guuleystii koowaad ee ku guuleystay barnaamijka. Ku soo dhawaad Cabdisaaq. aad baan ugu dhawahay barnaamijka Somtel waan u rayaaqan hadana bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadata barnaamijyadaas waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay barnaamijka in hore loo sii wado si bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan su'aalaha iyo barnaamijyada soo dhigtay shirkadda Somtel. waxaan xaggan Cabdisaaq ku guddoonsin doonaa abaalmarintiisii uu ku guuleystay oo xaq u lahaa abaalmarintaas oo ah $20 oo lagu guddoonsin doono adeegga IDAB iyadoo si toos ah waqti xaadirkan loogu darayo telefoonka nambarkiisa IDAB. Cabdisaaq waxaad ii sheegaysaa lambarkaaga IDAB. Cabdisaaq hadda uu iga hayaa $20 waxaa si fudud ugu diray adeegga IDAB oo aad kaga adeegan kartid meel kasta aad joogtid sida dukaamada, suuqyada iyo adeegyada businesska aad ku bixin kartid sida biilasha korontada waxyaalahaas oo dhan oo isticmaalaysid aad u mahadsantiin daawadayaal. insha Allah waxaan ku rajaynayaa inaad ka qayb qaadataan barnaamijka idinkoo si fudud uga qayb qaadanayo waxaad la garanaysaa barteena Facebook sidoo kale waxaa share oranaysaa postiga sidoo kale waxaa share garanaysaa barteena Facebook Somtel Puntland aad u mahadsantiin.